horta waxooyadu dhihi jirtaa caawa in rumooyo anu koonfur baa ku dhashay waxay dhihi jirtay ilaahu reer mudug la-aan hana dhigin marka horta waxay sheegi jirtay runteed baayado kartida iyo dhalinyarada iyo aftahanimada iyo runtii aad baa inaga mahad celinaa weliba gabdhaha waa very articulated gabdhihii meesha ka hadlay nimco iyo deeqo iyo kaafiye iyo intii kale oo meeshan ka hadashay runtii waxyaaba waxay ka hadleen aad muhiim ah waxaan sidoo kale rabaa inaan xaaji cafiska weydiiyey inaan isaga iyo inta kaleba aan cafiyo madaxweynihiina haddaad wax idinka dantiina aad ku dhaliishaan ma iidan ceeboobin khaladna ma idin samaynin dhaliishu annagay dan noogu jirta laakiin caydu iyo aflagaadadu ma fiicna marka inaad kala saartaan dhaliisha waan u baahanna inaadna dhaliishaan waa inaga faa'iideynaa haddii ilaahay annaga keliyana maahana dadka kalena ha caayinina caayada ceeba waay runtii kaas intaasaan aan ka oran lahaa xarumaha dhallinyarada magacooda lagu dhis wasiirada iyo guddoonka gobolka iyo degmada waxaan rajeynaya gacanta dowladda maamulkeeda inay kusoo noqoto dhallinyaradana waxaan ka codsanayaa nidaamka ay u dhisan yihiin wasaaradaha ay khuseeyaanna dib waa u egi doonaa horta haddii dhallinyaradu ay ururka dhallinyarada iyo n g o-ga de farqi baa udhexeeya sometimes waxyaaba in la kala saxaa la rabaa waxaas waxaan rabnaa inaan wasaaradaha ay shaqada ku leeyihiin inay hoos ula dhogaan laakiin markii la saxo ururkaas wixii hanti ururkaas magaciisa lagu yimid ururkaas kale ilaa ururku waa bulshadii waa qeyb ka mida dowladdii waxaan rajaynaynaa sida hadda la sheegay hadday jiraan in xarumo loogu talagalo bulshada dad gaar ay gacantooda ku hayaan xarumahaas waa inay wixii loo dhisay waa in looga faa'idaystaa maamulkiisana ay gacanta soo gashaa cidda munaasabka u ah oo iska leh xarumaha dhallinyarada youth clubka iyo maktabadaha iyo waxyaabaha la xiriir oo dhan sidaas sheegay oo mar labaadna aan ku celinayo dabcan sportska iyo macnihiisa layma sharaxayo oo raggiina badankiina maxamed cabdirasaaq taageeradu lahaabaa baa si fiican wuxuu xasuusiyey isaga waa dhallinyarada sportska saxda waana la forjeeyo yiri dadka kubadda cayaara foorjada khatar bay u tahay marka anigu ruuxaddana sportska waa iska cuslaaday raggii sportskaan ahaan jiray marka runtii gobolka mudug markaan ogaan jiray basketkay ku fiicnaan jiray volleyballka waa lagaga fiicnaan jiray kaalshada marka haddase waa isbedel joogiyo dad badan oo cayaaraha si fiican u cayaaraa jira waxaan aad iyadana u rajaynayaa garoonka Cawaale waxaan weliba si gaar ah halkan rabaa inaan uga faa'iideysto marar badanna aan rabaa inaan ku celceliyo magaca loogu magac daray garoonka oo Maxamed Cawaale Liibaan oo ah fikirkii iyo shaqsigii uu ka soo maaxday calanka reer gaalkacyoodna ahaa waxaan uga mahad celinayaa dadka reer gaalkacyood inay meeshii ugu qaalisanayd oo jiilka barbaarinaysay oo ah garoonka kubadda cagta in loogu magac daray jacfar waa uga mahad celinayaa kelmadihiisa taladiisii ahayd inay albaabadeenu ay xirnaanna waan ballan qaadeen hadda waagii hore waxaa noo lagu sheekeeyey mudug hooyaal baa haysta laakiin hadda waxaa noo caddaatay inay niman dhalinyaro oo powerful ay jiraan marka insha allah ahamiyad gaaraan siin doonaa dhalinyarada iyo xiriirkooda haddii dhalinyaro aan wax u qaban lahayn ama dowladda wax u qabato tii ugu muhiimsan inaan naas ku arna maxaa yeelay in
nidaamka xisbiyada badan aan ka shaqeyno horta faa'iidada ugu badan dhalinyarada ka helaysa ilaa dadka cabiraadda ra'yigooda meesha ay leedahay waxaan ku farxayaa inaan maanta arkay rag kaleeto oo xisbiyo kaleeto ka tirsan axzaabtu hadda waa ururo laakiin hadhow marka la kala baxo xisbiyada uu waddanku yeesho xisbiyada stateka uu wada leeyahay wey oo official ah oo ka mid ah qeyb ka mida dowladda wey markaas kelmadda mucaarad ceeb yani waa la ceebeeyey laakiin mucaaradku waa qeyb ka mida dowladda baarlamaanka ku jirta ra'yiga kaga duwan markaa xukuumadda haysa laakiin waxay leedahay xuquuqda xisbiga xaakamka uu leeyahay mid lamid ay leedahay taladii unbuu xisbigaas markaa haya marka annaga dhaliil iyo aragti ka duwan aragtida shaqadeenna waa waxa aan rabno inaan u baratano kii naga farsamo fiican oo wax naga fiican keenaya waa soo dhaweynaynaa waana la tartamaynaa haddii ilaahay marka waxaan rabaa in ruuxdaas aan abuurno qof xayndaabka dowladda iyo shuruucda ku dhex jira puntland ma colaadinayso way soo dhaweynaysa lakin waxaan rabnaa idinka naftarkiina garaadkiina siyaasiga intuu ballaarto waxaa la rabaa waxyaabaha xuduudda siyaasiga inay ogol yahay markaa tahay muwaadin iyo waxyaabaha xadgudubka ah fiiri mararka qaarkood dadka waxaa isaga darsamo mucaaradnimada iyo crimeka isagoo faldambiyeed galaayo wuxuu iska haystaa inuu mucaarad sameynayo marka meelaha khaladka ka jiro waa meelahaas oo u baahan inaan saxno mana sixi karno ilaa aan practice garayno marka waxyaabaha aan u dedejinayno maaragtay xisbiyada waxa weye in lagu practice garay waa la khaldamay waa la jabi waa laakiin marka dambe waxaa soo baxaya dad axsaabta iyo nin walba xuduudda u leh waan rajaynayaa dhalinyaro ayay u badan yihiin wasaaradaha muhiimka dadka jooga waxaan rajaynayaa inay ahmiyad gaara ay siin doonaan dhalinyarada iyo kobacooda maadaama cududda ugu badan ay yihiin marxaladii odayaasha xildhibaanka ii soo qorna laga tegayo hadda dhallinyaradii booskii bedesho codka dhallinyarada nasiiyo wey marka ahmiyad gaaraa leedihiin mustaqbalka soo socda keligeed ma ahna axsaabta siyaasiga oo dhan muhiimad baa u leedihiin in lala tartamona diyaaraan u nahay annagana waxay na gelinaysaa inaan diyaargarowgeena intaa ka kordhino waxaan aada ugu kalsoonahay kelmadihii quruxda badnaa ee dhallinyaradii gabdhayo wiil isugu jiray ay halka ka hadleen runtii in matalaada iyo doorka siyaasadeed aad leedihiin inay aada u muuqdaan baan rabnaa oy ka dhex muuqdaan dowladda oy ka dhex muuqdaan xisbiyada oy ka dhex muuqdaan intellectual activity-ga oo dhinac walba ah youthka iyo sportska iyo waa waxyaabaha qurxinaya inaan youthka dareereyna kooxda mahuraan xataa wasaaradda sportiga iyo dhalinyarada ku darno si ay dhalinyarada ay u dhiirigeliso oo runtii koox unique ah oo ama abwaandhagaaf iyo tiimkiisa runtii erayo culculus oo runtii macno weyn u sameynaya dhinac walba oo sectorka ah ayay soo jeediyaan oo tacliin ah oo u baahan in wax laga barto marka waan badin doonaa kulamada waan badin doonaa inaan si furan u hadalno aanan annaga aan reserve lahayn oo qof walba aragtidiisa uu dhiibanayo inaan doodnaan diyaar u nahay waa isqancinaynaa ninkii aan ku qancino xisbigeennana waa ka mid noqonaya kan kaleetana waa wada cayaareynaa siyaasaddu waa game soo maha axsaabta kale waa cayaareynaa laakiin waxaan u sheegaynaa kooxaha kale kooxdaan ka haynay laacibiin badan leedahay marka inaysan maaragta inaysan aada aysan ugu kadsoomin marka insha allah dhalinyaro firfircoon gabdho aada u firfircoon iyo ruug caddaa siyaasadeed ayaa xisbigan bays u ah oo magac iyo maamuus weyn ku leh bulshada reer puntland oo aan rajeynayno in ay u horseedaan hanaan dowladnimo oo ka duwan kuwii waagi horeeto isla jaanqaadkaas waxaan rabnaa waxyaabo badan oo dowladihii horeeta haystay oo duruufta dalka siyaasaddiisa u qaabaysnayd ay ku kalifaysay inaan uga baxno maogtahay dowladihii horeeta xataa caqabado badanaa haysta oo duruufta siyaasadeed iyo nidaamka qabaliga iyo xeyndaabkiisa ay ku xanimeen laakiin marka aan kan ka baxno naftarkeenna waxa weye in lagula xisaabtamo habdowladeedkii inuu isbedelo taasna waxaan rajaynaynaa in aad wax badan ka arki doontaan runtii wixii laga hadlay ma rabo inaan wada taataabto laakiin waxaan rabaa inaan wasiirada hadda halka ila jooga dhammaantood waxaan farayaa
أهمية قبل كمدق وليه أهمية قبل كمدق وليه هي متك بدن بإنات سيسان ما دام المهمة جار أولادها مدق مشاريع ذا نلص الوهر مرنا أيو مدة أمني الوسوق أيو مدة الدولة دي مذكر لو قاضي وحن كريو الرواينا كسر جنان ذو وحا قربو أتكمل خانة الدعي دونتان أنا أقوم في عن أولياء هاي رنتي علشان سنة أي كوتمت وقت الدور الرجلي قدوميها عصب قبل كمدو عبد اللطيف أو نن كيل كستبوحي مركو إلى الجوار يسقي إذا كان در له ولا يرى أولياء مركو الجوار خطر قبلها مركو لشة كيسرة عجائب سياسة مركو وكبر نقصنا هنا هذا وحكوا أرجع جرسين حلوان نمرو سهلين وحن رجينا يا إنه يسبدل وين وكسو كردين دونا ما مقام مقالة قال كعي يقول كمدو يقرشها النبضين مدو بنتلان يقل مدو رنتي ونسا حيب بدن أو ماركتي علاقات سياسية وحقوق لله لوضع دنع كلات وما دام مدبدا حلوان كسوها كونفورت الصومالية marka waxaan rajaynayaa gudoomiyaha cusub isbedelka hadda ku socdo gobolka in uu qayb weyn ka qaadan doono